السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام دمانتين أمة الصومالية ذي هالكني كدعوانيسا ميل كستو جوجتان إيه وقت كستيدين تاي إن وحن دونيا أو أن رباعنا أن كهالله الصوماليدو هرت الصوماليدو ويستقانا ويستقتريسا أو ويستقتريسا ويسقلب التريسا ويستقانا أنا ومركان ساعة هذا أصلا فرستات ساعة أفرت فيديو جاي إن هبة هاي قف كستو يسكرنا يا مركان قف كي هبة ما تهيد أما هبة ما أها قف كنا قف كل مرة تقف وارن بالله أركيا dadka oranaya 24 saac maanta social media iyo meel kasta la soo fadhiyo ee faraxsan ee alalaasaya ogaadeen hal qabsado anigu weligay qabiil kuma hadlin qabiil dhinaca ii gali maayo qabrigayga camalkayga la galayaa laakiin marka jiirkiis lahaye jirid kama qoslay Soomaalidu ku maamaada mararka qaarkood markaad waxyaabaha qaarkood oo aadan dadka u quurin aad aragto wad xanaaqaysaa adigana ina aad qofka aad tahay is sharaxdo way kugu kalifaysaa marka si ay dadku kugu ogaadaan qofkaad ahayd iyo qofka aad maanta tahay kaad ahaan doontaba waxaa jirtay qarniyo badan Taniya Axmed Gurey iyo in aynaan garanayno ka sii horeysaba ina ay deegaanka Ogaadeniya ama ka xanaaqamada deegaanka Ogaadeniya la yiraahdaa dalka Ogaadeniya ina ay ama DDS ina ay qarniyo badan ka soo jireen dagaalo isdaba joog ah oo lagaga xoreynayay ama gumaysi haysta ahaado ama wasa qoomiyada kale oo aan Soomaali ahayn oo dhulboob ku jiray lagaga xoreeyo haddii aan soo qato qoomiyada Ogaadeenka boqolkiiba 80 bay ka tahay deegaankaas Ogaadeniya way ku qasban tahay ina magaceeda loo bixiyo waa wax iska fudud aad bay u fududahay ina qofka boqolkiiba 80 ah ina magaciisa meesha loo bixiyo aad bay u fududahay ta kale markaan ka soo gudbo waxba hadaan ku sii dheeraanin magacaas waa la yiraahdaa waana la oran doonaa qofkii aan raali ka ahayn rabina 20% wax ay tahay iska yarba boqolkiiba 80 hadii uu magaca rabo 20 qofna wax weydiin mayso horta 80% waxa ay keeni weydayna 20 horta keeni mayso taana waa inaad qalbiyadiina gelisaan tan kale waxa weeyaan Ethiopia Soomaalidan oranaysa xuduudadii baan u xiranay iyo yaraala hada telefoon bay soo galay Soomaalidan oranaysa xuduudadaanu ka xiranayna iyo ogaadeenka nagu soo qaxay iyo oramaanu soo dhaweynayna iyo war waxa doontaan soo dhaweey Soomaaliyeed awalba naxariisidun kuma aanan haysan hagardaama iyo luqabasho cadow mooyaane iyo dhabarka toogashi iyo u baqna goyn cadow mooyaane horta naxariisidun kuma aanan haynin Soomaali nooma kala sokayso anaga way nala wada dhasheen way noo simeeyeen way jiraan kuwa abtirna la wadaaga laakiin waxba nooga ma sokeeyaan kuwa kale aan hal idin sheegay haddii aan ka hadlo qoomiyada Ogaadeenka waxa ay ahayd ama ay tahay war anagu Etoobiyaankan aad sheegaysaan weligeena waanu isnaqaana waanu isla dagaalami jiray waanu isla dagaalami doonaa Ethiopia anagayna taqaanay idinka idinma taqaano Ethiopia anagay dan naga leedahay idinka dan idinka male waxaad ugu daba dhaqlaysaan iyo ugu sacabtintaan baaba iska yar Ethiopia idinma rabto idinmana taqaano Ethiopia Ogaadeen bay taqaanaa Ethiopia Ogaadeen bay danaynaysaa oo wax ka rabtaa Ethiopia albaabka markii qofkii garaaca magaca Ogaadeen bay ku furtaa aan idin sheegay awooyaday iyagoo go yar oo cad oo rifrifan iyo usha ay geela ku raacaan wata ayay Ethiopia meel iska saareen weligana miyad naga maqashan anagoo la Soomaaliyeey noo soo birmada Soomaaliyeey ciidan hana loo keeno Soomaaliyeey hubna siiya no idin mana oran doono horeyna idin ma aanan oran inaga warsuga Soomaaliyeey waxba ha sacabtamin waxba ha riyaaqina anagu awood aanu lahaan jiray haddana waanu leenahay ciidan baanu leenahay dawlad baanu leenahay kala dambeyn iyo maamul iyo madax baanu leenahay
أنا وحبي جم قال مدحوين اللي بدله يكون هذا الصاري وحصل لأن أنا كي ماشي ما دابا وإيكي كلا الصومالية ماشي قبصة لكن وحدين شيء يا رير DDS أما أقعدينيا الصوماليين أنه حيران الصعب تميز إن كسر أنه الدجال كتير أنه عدو فول كفول السهينه هذا الأواقع إذا كسر بحياي دجاها نجوا يكون عيان كي سمان نوجد أواقع يكي حمان نوجد أواقع وحنات أقعتان قدر صاع قف كستوي ماشاد نو استاك أيان كوتا جناه النجو عيدا بانولين عيدا مدي أب كعبادة يصير النيو بوليس ويتشوجان وأقوى ما أنت دلك حرية الحدود فديم ملتري إثيوبيا تبقى أديده ويان شعب بانولين هاي جيسية oo baabuurta iyo taangiyada isu dhigayaanu leenahay waxba idin kama baahnina hagardaamada uu naga daaya Soomaaliyeed qosolo waa hiila la yiri orama ninka u qoslaya ama soo dhaweynaya ama saka xiranaya hooyooyinka Soomaalida ee isiri inta dhalinyaradu dagaalamaysa bal dhinaca kale aad ka soo xiranaya oramkana soo dhaweynaya horta bishaaro ku bishaaraysan ku oramana meel aad u marto ayaaba iska yar oramana dad haday abaal u galisay abaal celinayso annaga inoo celin lahayd annaga canjeeradanada ku soo kortay annaga jabhadooda haynay jabhadanada jabhadooda hagaysay annaga tababaraynay annaga jidka tusnay ay ku xoroobeen ta abaalka garan weyday maalinkii kursiga loogu dhawaaqay ay saad aragtay u gashay caasimadanada intay meel walba soo dhaaftay ay soo weerartay weeyaan horta orama waa taa haday ku qaniinto jaad iyo lows jidkaaga kaga dhex tagaysa teetana weeyaan horta iska ilaaliya afkaba xiribaa kaga jiray waxa soo dhaweysatay horta waaba taaba bagaadan horta dad wax tar ah sida axmaar iyo tigree aadan soo dhaweysanin oo waxa aad soo dhaweysatay oo oramo huuro leeyahay aad baan uga xumaay horta waxaan ku bishaaraysataan Itoobiya horta annaga idin dhaxayna Soomaaliyeed annaga ka sokayna waxa la hebelo waxaanaday waxa ka sokeeyana day oo arag inta Itoobiya indhaha u lalinaysan horta ogaadeenaya ka sokeysay qub haydan tiraado haydan dhacda saaxiibayaan ogaadeenayana annagiyo geel jiro oo ul wadanaan Itoobiya annagu horta ka adkayno iskaga filay oo aanu ka adkayno gobol uu ogaadeen dago horta ma joogto axmaarana ma timaado mana soo gali karto bal ar gobol qadahar dhagax buur war dheer maxaan ku dhahaa afdheer ku arag iyo naga axmaar ma iman karto goboladan kale Soomaalida kala degaanay Oromo iyo Balaayo iyo xinka ogaadeenka ay u soo kaxaysteen baaban horta isku haysanay raganagu ku dhamaadeen difaaceeda mooyaane goboladanada anagu waa hore anagoo geela raacnaan ka adkaan macdan la waaba anagoo dawlad iyo ciidan haysana dawladna haysana maxaabad u malaynba iyadoo Itoobiya danna naga lahayn waxba naga danaynaynin ayaanu ka adkeen macdan la waaba iyadoo nadanaynayso shidaalka nagana rabta 40 milyan ee gaajaysana doonaysa inaanu u hayno oo Itoobiya dan naga leh iyadoo Itoobiya oo dhan la dagaalamaysaanu ka adkeen macdan la waaba tiyo kilaladii kalaaya in la soconay Oromo oo kaliya tahay horta ku seexo ku soo toosay dadka alalaasayo ina aan si kastaba ha noqotay inaana marnaba la iga guuleysanayno goosh gacantayda ku jirto waan ka xumahay dadka ku faraxsanaa ee moodayay xuduudadan xidhay Oromo soo dhaweynaya minaamin ogaadeen hal la qabsado no ogaadeen isagoo go yaro rifrifan wato galool hoostii seexda dhulkiisa la qaadan waay macdo la waaba isagoo dawlad iyo saanad hubeed iyo madaxweyne iyo maamul iyo kala dambeyn leh oo lifo jabhad oo ciidana ana iska leh new police ana iska leh ciidamo kale oo waxa jirta aydan ogeyn new police badbarateen oo yaala jira oo aan la soo baxay hadda oo ciidamadii naarta ka waraabiyay Oromadii soo weerartay dhulkayga taaka inta in la eg ugama tanaasulayo Oromo Soomaalina waan iskaga filahay Itoobiyana waan iskaga filahay qof aan ii baahnayna uma baahni laakiin derisnimada la ilaaliyaan dhihi lahaa lama kala maarmo Ilaahay baa inoo wada dajiyay oo Soomaalinimada halkaas ka dhig Soomaali waa hore meedkeeda kala guratay waxba isuma aha Soomaali waa taa alalaasaysa ee cadawgana soo dhaweynaysa walaalkeedna riixaysa weeyaan taas waanu iska helmaan halkaas ka dhig waxaad ogaatay derisnimada saad ugu xadgudubtay bari kamaal adna waa ugu xadgudbi doona abaaraha dhici doona shalay bay ahayd marka aan xoolahaaga iyo caruurtaada iyo odayaashaadaba aan tunka saa ugu wadeen biyaha ugu dhaaminayay laakiin Soomaali abaal male Oromo oo kala nagu noqoteen
dhibsa male jazaaka allahu khayr ilaahay baanu ajarkaas ilaahay dartii baanu ugu samaynay madaxweynaha anaga ruuxiga abaa u sameeyey kii la doortaana waa cabdi oo kale un kii soo fuula xilka waa cabdi oo kale un cabdina geesinimay Itoobiya uga cabaadaysaaye xumi ugama cabaadayso horta cadowgaagu haddaad aragto cadowgaagu qof uu nacayo waa qof adiga waxtar ku leh dadkaygow waa inaad taa ogaataan weligiin cadow u soo raacina qofkiina waxaan idin leeyahay tawaaqeedii soo baxay Soomaalida ka soo baxay waan maqlay oromana meel baan iska saaray waanan iska saari doonaa Soomaalida kale ila degan ayaan u soo noqonayaa qofkii aan ogaadeenaya ogolayno intaada yaree degan tahay ku darso oromo ku darso qolo kale aday ku taala horta hadda nolosh nabada waan xasilinaynaa idinka tagi meeno meelana idin goyn meeno laakiin maalinkeen nabadu sal dhigto ku seexo ku soo toos qolada doonta ku darsanaysaa tuulayowgina ku darsanaysiin annaguna goboladana way nagu filayeen 7 gobol baan leenahay 9 gobol ma aha 7 gobol baan anagu leenahay 7 gobol shidaalka buuraha dahabka xoolaha nool intaba aniga iskale wabillahi tawfiiq maxaa la soo dhibaya walaal ban imisa qarni leeyahay qof waxaan ku iri aad kabihiisa tolayso kafankaaga tolaya cajiib assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idin wada salaamayaa waxaana soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay soo dhawow welcome baan leeyahay insha Allah waxaan rajaynayaa inaad shaqo wanaagsan qaban doonto inta aad xilka hayso markii lagu yimaado lagaala wareegana insha Allah mid khayr qaba Allah noo keeno dhamaantiin waan salaamayaa nabaday